سؤال شو رئيس الشيخ محمد الويديني وحويه شيخ سأل كان مقرئ هاي الشيخ وحن حيا لعب إليه عرور أبونا وأن مسؤول خاح أضرب الشيخ واللعب تاسم كبه كرا قارا أيتم مسؤول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. xoolaha agoonta aad haysid qaaraanka tolka kuma bixin kadib hadaad ku bixisidna waxay gelaysaa aayadii innal ladina ya'kuluna amwaal yatama dhulman inma ya'kuluna fi butunihim naaran wa sayaslawna sa'ira. marka xoolaha agoonta aad haysid qaaraanka kuma bixin kadib wixii baahidooda kali ayaad ku bixin kadhaa. زكاة هذه كوا جبتها الزكاة واتك بحين إسائية وحق إيجا اللي قولي هي وبالله توفيق. جزاك الله خيرا. شيخ سائل كان قولي هي شيخ waxaad ii cadaysaa mutaabacada ama raacida imaamka ana qofka imaamka loo yahay maxay tahay mutaabacada laga imaamku se Allahu akbarta ma wuxuu oranayaa markii uu ficilka rukniga la yimaado mise inta uu soo socdo. bismillahir rahmanir rahim. حديث صحيحة أي نبي وحكي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به. إمامك وحا لو جديي أو ددك تجينيا إن لو ضيده. مركز النبي بلابي عليه الصلاة والسلام استدي لو ضيان لها فإذا كبر فكبروا الله أكبر. مركو يرى الله أكبر كذب له مركو ركوعه كذب ركوعه saasa nabigu waday calayhi salaatu wasalaam. marka qofku imaamku ku xiran yahay afar siyood ayaa suurtagal ka ah. saddex ma banaana oo qofka looma ogola. tan hore waxa weeye musaabaqa qofku imaamka inuu ka horeeyo aad bayna arrintaas inuu ka dhacdaa waliba rukuucda iyo sujuuda marka laga soo kacayo iyo dadka qaar ba iyagu degdegsan masaajidka soo gala markaasay imaamkii sugimayaane waa ka hormaraya. arintaas sax maaha. waciid adag baa ku soo arooray qofka wajigiisa kor u qaada intaan imaamku wajigiisa kor u qaadin. nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu uga digay qofkaas wajigiisa waji dameer in laga dhigo ama suuradiisa suurad dameer in laga dhigo inuu khatar ugu sugan yahay. waxa kale oo dhici karta muqaarana imaamka in qofku uu la socdo la beritamayo Allahu goortiirada waa raacay waa la socdaa iyadana lama ogola. waxa iyadana suurtagal ah mukhalafa qofku imaamkii inuu ka haro imaamkii rukuucay inuu iska taagan yahay imaamkii sujuuday inuu iska taagan yahay wali. mararka qaarkood dad baa khayr ka jecelo imaamkii ka soo fariistay sujuudii bay iska sujuudsan yihiin. sujuudda lagu dheeraanaya khayr ma leh bal qofka ajarkii jamaacada ayaaba khatar ka gelaya. midda afraad oo loo goliyo banaan waxa weeye mutaabacadu waxa weeye imaamku goortii ruknigii uu galo marka inaad ka daba gashid ilaa ruknigii uu gaarayo. ruknigii adigu ma aadi kadib. tusaale ahaan rukuucda ilaa uu toos u rukuuco dhabarkaaga adigu ma soo leexin kadib. markuu toos u rukuuco ka daba rukuuc. markuu toos u soo istaago marka adiguna soo istaag. markuu sujuudayo wajiga ilaa uu dhulka dhigo adiga dhabarkaagii ixtidaalka aad ku taaganay sidii waa inuu u taagan yahay. xataa sidaa ma oran kadib. goortaas inuu wajiga dhigay markaa soo kaco wajiga dhig. marka
mararka kale oo lagu khaldamaa waxa weeye marka imaamku uu sujuudda ka soo kacayo istaagayo ilaa aad hubsatid inuu toos u istaagay wejigaaga ha soo qaadi salaadeena haddii la eego waa muqaarana ama waa musaabaqa ama imaamkii waa la socda dadka qaarkiina waa ka hormaraa marka mutaabaca loo baahan yahay waxaad ka qiyaasanaysaa rukniga ilaa imaamku uu toos u galo adigu kii ka horreeyey waa inaad ku jirta markaa waa inaad ka daba gasha su-aasha qaybteeda labaad oo ahayd takbiiraadka intiqaalka goormaa la odhanayo ilaan takbiirta hore oo salaada lagu gelayo iyada haddee imaamka lagamana hormari karo marna lagama odhan karo allahu akbar markuu yidhaahdo markaa kadib baa laga daba odhanaya laakiin takbiiraadka kale imaamka iyo ma'muumiintaba takbiiraatul intiqaal baa la yidhaahdaa laba rukni bay u dhaxeeyaan rukniga hore oo laga soo tegayana lagu odhan mayo kan la gelayana lagu dhex odhan mayo tusaale ahaan imaamku markuu rukuucayo oo kale markuu rukuucda u dhaqaaqo ayuu odhanayaa allahu akbar rukuucda markuu gaaro markaba afkiisa waa inay ka go'daan takbiirta laakiin isagoo rukuucda ku jira hadduu allahu akbartii yidhaahdo waa qalad ansixi mayso takbiirtaas sujuudda oo kale marka madaxiisa uu hoos u dhiguu bilaabaya allahu akbar wejiga markuu dhigo afkiisa waa inay ka go'daan dadka qaarkiis markay sujuudda ka soo kacaan oo kale goorta fariisto odhanaya allahu akbar waa khalad sujuudda markaad ka soo kacaysid baad bilaabaysa allahu akbar goorta fariista afkaaga waa inay ka go'da takbiiraatul intiqaal baa la yidhaahdaa labada rukni oo takbiirta loogu kala guurayo dhexdooda takbiirtu waa inay dhacdaa kan hore intaad ku jidhidna waa inaadan bilaabin kan dambe aad gaadhay markaad gaadhidna takbiirta afkaaga waa inaanay ku harin wabillahi tawfiiq جزاك الله خيرا سؤال saddexaad saailkan wuxuu leeyahay dadka qaar ka midii markii ay salaada ku jiraan ee ay faatixada akrinayaan iyagoo aan dhammayn faatixadii ayay qaarkood rukuucaan faatixadii intii u hortana intaa dhexdeeda ama sii socodka dhexdeeda ama rukniga kaleto dhexdiisa ayay ku dhammaystiraan haddaba salaadaas ma ansaxay بسم الله الرحمن الرحيم horta ugu horeyn faatixadu waa rukni ka mida salaada sida raajixana waa waajib imaamka laga rabaa ma'muumka laga rabaa xataa salaada haday jahriya tahay qofka keligii tukanaya laga rabaa faatixada inuu akhriyo oo qof aan faatixada akhriin salaadi uma ansixin qofku markuu ma'muum ku xiran yahay waa labo inuu ma'muumka imaamka markuu imaam ku xiran yahay baan leeyahay waa labo inuu qofku imaamka salaada la bilaabay muwaafiq baa la yidhaahda hadduu qofku imaamka salaada la bilaabo waa waajib faatixadii oo dhammaystiran waa inuu akhriyaa haddii uu carab culus yahay oo imaamku faatixadii uu kala dheereeyo oo uu rukuuco adigu faatixadaadii dhammayso hadhowna ka dabata oo madhabu shaafici oo kale ilaa sujuudda waa ku gaari kardha laakiin sujuudda waa inuusan ka soo kicin waa haddaa adigu carab culus tahay isaguna degdego faatixadii istaagga waa inaad ku dhammaysa haddaad mararka qaarkood way dhacday faatixadiiba ilowday adoo imaamkii ku xiran mararka qaarkood waxaa dhacda salaadiibaaba waxaad mooda jahriya inuu faatixa kor u akhriya aad sugaysay isagoo rukuucay baad aragta markaa waa la rukuucaysaa ragcaddaasina waa ku dhaaftay hadhow baad dib ragcaddaa kala imaanaysa laakiin markuu rukuuco faatixadii bilaabi maysid maxaa yeelay adaa dayacaa sameeyey qofkaa muwaafiq baa la yidhaaha waa qofka imaamka salaada mar la bilowday qofna waa masbuuqoo imaamkiiyo salaaddii ku jira ayuu yimid oo salaaddii la galay qofkaa isagana markuu imaamka salaada uu ku xirto hadduusan hubin oo dannigiisa raajix aanay ku noqon inuu ducadii iftitaaxa iyo faatixada labadaba ka gaari karo wax kale ha isku mashquuline faatixada keliya akhri faatixada kuyu tuso mar haddii aad ka baqaysid inuu kaa rukuuco faatixada keliya akhri oo ka gaarsii faatixada
haddii qofku faatixadii isagoo bilaabay ma'muumku imaamkii uu kaa rukuuco markaa la rukuuc, inta kaa dhiman imaamkaa kaa xambaaraya, adiga lagaama rabo. waa haddaadan wax gabood falah adigu aadan samayn oo iftitaax iyo waxyaalo kale aadan isku shuqlin. haddaad iftitaaxi hataa isku shuqliso culimmadu waxay yidhaahdeen intaa iftitaaxii ku jidhay faatixadii sii wad, laakiin markaa la rukuuc. haddii imaamku uu kaa rukuuco marka adoo faatixadii bilaabay intaadan dhammayn, ama goortaad soo gashay buuba rukuucayba, rukuucdii baad ku soo gaadhay, faatixada hadday wax kaa dhiman yihiin markaas, ama rukuucdaba aad ku soo gaadhay, ragcaddaas faatixada inta ka dhiman iyo rukuucda aad ku soo gaadhay faatixadeedii lagaama rabo. su-aasha qaybteeda kale maxay ahayd? faatixada waqtiga la akhriya waa istaag, rukuuc laguma akhrin karo. hadduu rukuucda ku akhriyana ansixi mayso. isagoo qofka toosu taagan faatixada waladaalliin afkiisa waa inay ka go'daa. wabilaahi towfiiq. jazaaka allahu khayran. sheekh saa'ilkaas aad wuxuu leeyahay, sheekh waxaa jira dhaqamo ay dadka soomaaliyeed qaarkood leeyihiin oo ah markii ardaygu uu dhammeeyo qur-aanka kariimka ah in ay siiyaan qaalingeed. marka dad ka mida dadka soomaaliyeed waxay ku beegaan xilliga ay xooluhu sakagoyska ay gaaraan. haddaba haddii uu ku aadiyo xilligaa qaalintii macallin, sakadii maka gudaysa? bismi illahi raxmaan iraxiim. qaalintaasi waa ujra, sakana geli mayso. waxa macallinka loo siiyaa waa abaalgud iyo wiilkii ama gabadhii qur-aanka ee ilmihii qur-aanka dhammeeyey, marka qofkaas saka u geli maysa ee sakadii mar kale ha bixiyo. wabilaahi towfiiq. jazaaka allahu khayran. saa'ilka shanaad wuxuu leeyahay, shay qof aan dayn ku lahaa saka intaan siiyo daynkeydii nooga qaadan karaa? bismi illahi raxmaan iraxiim. haddii heshiiskaasi uu jiro, maya, sakaan ku siinaya, sakadaa markaad qaadatid dayntii iisii haddaad tidhaahdid sakadaasi kaa bixi mayso, mar kale waa inaad bixisa. laakiin haddaad qofkan waa faqiir, waa miskiin, sakaad siisay, dabadeed buu kugu soo celiyey, wuxuu ku yidhi waa dayntaadii, waa ka qaadan kadhaa markaas, mar haddii heshiiskaas hore aanu jirin. wabilaahi towfiiq. maasha allah. su-aasha lixaad, sheekh saa'ilkan wuxuu leeyahay, sheekh waxaa guriga igula nool ama aan mas-uulka ahay, guriga igula nool qol qaangaar oo aan tukan mar walba oo aan rutuko igama yeelin. haddaba dambina iga soo gaaray maadaama aan u xukmaynayo. bismi illahi raxmaan iraxiim. waxay gelaysaa arrintaas min baab alamri bilmacruuf wannahyi can ilmunkar. adigu inta awooddaada ah dadaal, waani ciddii kalead ugu yeeri karid ugu yeer. haddaad ciqaabi kadhid ciqaab, guriga cuntada ka qadi. haddaad sida guriga haddaad ka cayrisid wuu roonaanayaa. wixii aad ku tacsiiri karid ku tacsiir, waanadana joogto uga dhig. adoo dadaalay markaa kadib haddaad kari weydid, haddee eedda isagaa yeelanaya, adigu wax eeda kuma lihid. wabilaahi towfiiq. maasha allah. su-aasha toddobaad, sheekh saa'ilkana wuxuu leeyahay, xilafurku ma ka mid yahay qoraahyada furin? masaladaa hore, haddii ay jidho maxkamad ama dowlad wax ka qabanaysa, waa inaad u geysaa iyo ku dacwaystirada ninkaani ma tukado, si markaas shareecada loo mariyo. tan kale oo ah xilafurku furiinka ma ka mid yahay, oo xilafurku soo shardi dalaaq ma ah, waa haweentiiyo furiinkeeda lagu xiray shardi. haddaad waxaa samaysid waa iga furan tahay, xiluhu waxay iga furan yihiin, haddaan waxaa sameeyo waa shardi dalaaq toosa. haddii qofku wixii uu ku xilo furay isagu uu sameeyo, ama qofkii uu ku xiray uu sameeyo, furiinkii waa ka dhacayaa qofkaas. wabilaahi towfiiq.
خيرا سؤال شو دنبيسي محمد أنا ودينينه شيخ سائل كان وحلي هاي شيخ وحان قضاء حنان كله يقعنا قرر هذا بحدي عن صلاة إحدى الكبر صلاة من الكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. horta ugu horeyn gororku weesada ma buriyo oo qofka hadii dhig ka yimaado labada jid meel aan ahayn weesadii qofka kama burin. mideeda labaad qofka isagoo salaada ku jira dhiiguna asal ahaan si raajixa ah waa najaas oo qofku haduu maradiisa ku ogyahay ama jirkiisa kale uu ku ogyahay waa inuu iska dhaqaa sidiis. qofku marka isagoo salaada ku jira haduu goror dareemo gororkaasi wax yar oo dareemay haduu yahay oo fartu wax yar ka dareemay salaadiisi waa wadanaya waxba dhibaato ma leh waxa yeelay wixii sidaas oo kala awaalino cafi sida u yar. laakiin gororku haduu noqdo dhiig shumayo tibiq leh salaadii waa inuu ka baxaa qofkaasi dhiigii waa inuu iska mayraa gororkii waa inuu ka istaagaa markaas kadib salaadii dib ha u tukado hadii la haydmo wabillahi tawfiiq.